dunidan waxaa ku nool dad xirfadlayaal ah waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah xirfadlayaasha kuwa lacagta ugu badan ku shaqeeya taawarka shaqadan waa mid ka mid ah shaqooyinka dhanka farsamada ee ugu lacagta badan adduunka taasoona ah shaqo la qabto 6 biloodba hal mar waxaana isdhihi kartaa shaqo la qabto 6 biloodba hal mar ma ahan mid leh lacag aad u badan laakiin arrintu sidaa way ka duwan tahay shaqadan qofka qabanaya waxa uu ku qaadanaya adduun lacageed oo gaaraya $20,000 waaw waa mid kugu noqonaysa la yaab badanaa ma dhacdo xirfad sidan oo kale ah oo lagu helo lacag intaan la eg ateenadan waa mid ka mid ah kuwa ugu dheer waxayna gaaraysaa dhirirkeeda 450 mitir mana ahan mid qof kasta uu kori karo ninkan waa injineer xirfad dheer u leh qaabka loo sameeyo ama loo dayactiro taawarada sidan oo kale u dhaadheer ninkan waxaa lagu magacaabaa Kevin hawshaana waxaa qaban kara shakhsi leh awood jireed oo dhisan ninkan waxa uu xirfad wanaagsan u leeyahay dhanka korontada mana ahan mid dareemaya wax cabsi ah xilliga uu sameeyo markasta ayuu qabtaa shaqo tan oo kale ah taawarka in la koro waxa ay ku qaadanaysaa muddo 2 saacadood ah sidoo kale in laga soo dego waxa ay qaadanaysaa muddo 2 saacadood ah mana ahan mid fudud shaqadan uu qof kasta qaban karo haddii aad rabtid inaad heshid shaqo wanaagsan waa inaad u tartantaa waana mid caadi ah mana ahan mid la yaab leh hase ahaatee wiilkan yar ayaa ah arday degan magaalo ku taala Ingiriiska ma uusan filayn inuu ku guuleysanayo tartanka biyaha isagoona ka guuleystay dad gaaraya 200 oo qof dad aad u badan ayaa la yaabay wiilkan kartidiisa waxa uu ahaa mid waqti badan ku qaata meelaha leh biyaha lagu ciyaaro ama lagu tartamo riyadiisuna waxay ahayd inuu shaqo ku helo waxaana ugu dambeyntii ku helay ku jiritaanka biyaha shaqo shirkad ayaana shaqo siisay wuxuu u saxiixay heshiis gaaraya 6 bilood oo uu ku qaadanayo £20,000 waana mid dhif ah in la helo mana ahan mid fudud inuu qofka biyaha ku dhex jiro subax ilaa habeen isagoon marka hore waxba ka helin inta lagu guda jiro heshiiska 6 bilood ee uu qaadanayo mushaarka ma ahan mid jooga hal magaalo ee waxa uu safrayaa wadamo badan shaqada habsiinta dunida haatan waxaa ka jira xirfado shaqo aad u badan taasoo ay ka mid tahay xirfadda la yaab kale ee habsiinta weligaa ma kugu dhacday inaad qof u xiisto kadibna aad habsiisid markaad aragto sida caadiga ah qof kasta ayay ku dhacdaa laakiin xilligan waxaa jira dad ay xirfadoodu tahay inay ku shaqaystaan habsiinta xirfaddan shaqo ee habsiinta waxay leedahay waqti u gooniya oo ah inta u dhaxaysa 1 saac ilaa 6 saacadood xaqiiqdii waa mid aad u adag intaasoo saac in hab la siiyo laakiin waxay leedahay lacag aad u fara badan halkii saac qofku waxa uu ku qaadanayaa $80 xirfadda cunto cunista ma ogtahay in cuntada badan ee jirka bini'aadamka u keento dhibaatooyin sida ay sheegeen culimada cilmiga caafimaadka iyo dadka khibradda u leh siiba cuntooyinka macmacaanka laakiin waxaa jira shaqo aad u xiiso badan oo ah dhanka cunto cunista waxaana jira shirkado laga leeyahay dalka Mareykanka oo sameeya cunto shirkadahaas sida ay u bilaabeen cuntooyinka waxaa soo ifbaxay dad ay xirfadoodu tahay cunto cunista shaqadan ayaa qofku u safraya magaalo ka magaalo waxayna tegayaan meelaha kafeteriyada iyo maqaayadaha kala duwan wayna ka cunteynayaan dadka xirfadlayaasha ah ma bixinayaan cuntada lacagteeda laakiin caqabad jirta ayaa ah dadkan ma lahan wax doorasho ah oo waxa ay cunayaan cuntada loo keeno dadka xirfadlayaasha ah waxay leeyihiin dhakhtar u qaasa oo la socda saameynta ay ku yeelatay cuntada jirkooda kadibna dad badan ayaa ku guuleystay inay noqdaan xirfadlayaal dhanka cunto cunista ah wax lacagana kaga baxayso cuntooyinka ay cunayaan waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan la wadaag janaalka maanta asxaabtaada